maxaa laga wadaa marka ha ka tagin diintaada sida caadada ah ee noqotay haddana waxa weeye in la isdhex galo marka qof waliba dhoorsoon oo is ilaalinayo diintiisa ilaashanaya meel u sahlan ma aha wasiirkii intay fiirisay ayaa waxa ay ku tiri haddii muslimiintiinoo dhan aad sidan ahaan lahaydeen idinkaadna xukumi lahaa لكن الله سبحانه وتعالى يسوي دي سواء ترى يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله يقول عاوي بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله موضوعا ما انت هكتجن دين هذا وحنوم علينا يا وموضوع قف ولا بقى وهرك فهمي كرام دين تو إني مهم ده قف دين تي سكتجينا مجرو محل جوضا أمرك هكتجن دين هذا دين تسيابها هذا وقت جيسي إن الدين تكود بحذو أنو نهبل بان نقضي والعياذ بالله قال بان نقضي وحلم إذا ماها كلية عادوين كي المعلومات أيان كوضا أو شقوين كينا إيا حفيسية إيو وحيابها سقوسيو مالين ولبا أن كل حجرنو أيا وحان رواينا وحير وأنو قلنا دينا عيقا تابتي لغاية أبو دان يردينا إيو قبلها يويلشا إيو حتى أضياش حفيسية كشقية كوا وين كي كوا يرر كوا عصب iyo kuwa mudada khibrada lahaa intuba culays haysan kara inuu jiro waxaad ogaanaysaan goobaha shaqada waxa ka shaqeeya rag iyo dumar sida caadada ah ee noqotay haddana waxa weeye in la isdhex galo marka qof waliba dhoorsoon oo is ilaalinayo diintiisa ilaashanaya meel u sahlan ma aha way dhib badan tahay waa la isdhex galayaa garbaha la isku hayaa waa la is salaamayaa habba la isiinayaa hade waa toos baa la isu dhex galay dhanka isaga ahay marka qofkii oo shaqada u baahan oo laga yaabo meeshii inuu mishaar ka qaadanayo diintiisii oo rabay inuu ilaashto caadadii iyo wixii meesha ka jirtay noomkii caadiga ahaana uu yahayba sidaasi waa arrin aad iyo aad u adag wayna ku soo badanaysaa maalin ka dambayso goobaha shaqada markaan ku leeyahay goobaha shaqada gaalada kaliya inuu ku sawirnaanay kuweennii xafiisyadeenii dowladda iyo waxaa kuu sawirmaya iyo muxuu ahaa iisha goobaheennii ganacsiga iyo meel walba way soo buuxsameen marka qise yar baan rabaa marka hore inaan idiin sheego wanaagga ay leedahay inaad ilaashatid diintaada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abaalgudi doono iyo cagsigeeda haddii lacala aad ka tagtid adiga waxyaabaha aad rajaynayso waxyaabaha ka cabsanayso waxaa ka mid ah haddaa waxaad samaysid waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo op amay wax dhacaan ama jagadii lagaa buriyaa ama lagaa xumaaday wax la mid ah qisa ayaan hadda kahor waxaan ka akhriyey haweeney wasiirad ka ahayd dalka ingiriiska wasiiradda shidaalka inay ahayd baan u malaynaya ayaa waxay soo booqatay waddan ka mid a waddamada carabeed markii ay imaanaysay airportka dabcan waxaa soo dhaweynaya wasiirkii dhigeeda ahaa iyo waaweynkii wasaaraddaas joogay iyo dadkii oo dhan dadkii soo dhaweynayay marka wasiiraddii ingiriiska markay timaado airportka waad fahmi kartaa marka la soo dhaweeyo wasiirkii aa la salaamayaa dadkii meesha safnaa oo dhan gees waa in laga maraa oo looga salaamaa nin ka mid ah dadka oo rankinka fiican kule wasaaradda ayaa mar alla markii u soo dhawaatay ayuu gacanta saan yiri wuxuu yidhi thank you dhahay soo dhawow gacantu intuu saartay ayuu diiday inuu salaamo wasiirkii aad iyo aad bay wajigabax ugu noqotay carbeed wuxuu dee u qaatay inay magaaladii iyo adduunyadii soo duntay wasiiraddii ingiriiska waddankiisa timid in saas loogu ceeboobo anshaxma adigu halkaasoo kala booday shirki markii ay galeen ayaa wasiiraddii waxa ay weydiisay wasiirkii waxay tiri aaway ninkii odagay salaantayda diiday markaas marka maladu waa maxay qof waliba wuxuu niyadda ku hayaa kii balaaya ku dhacdi madfac baa ku dhacaya waa kaka wasiirka hadduu xafiiska la gaaro nasiib buu leeyahay waa laga burinayaa jagada iyo wax la mid ah ayaa u sawirnaa wasiiraddii ayaa loogu yeer waxaa la yidhi wasiiradda ku yeeraysa maxaa dhacu dhahay mayaa la yidhi adigu soo bax oo u yimid markaasaa wuxuu yidhi maxaad u diiday ayay tiri inaad isalaantid wuxuu yidhi anigu qof muslim baan ahay raalli iga noqo xumaan kale ma ahayn gabdhaha ajaanibta naga ah inaan salaano diintaan ogolan saas weeye wasiirkii intay fiirisay ayaa waxa ay ku tiri haddii muslimiintiinoo dhan aad sidan ahaan lahaydeen idinkaadna xukumi lahaa bal halkaas waxaan fiirso idinkaan idin hoos imaan lahayn diintanna waxay noqon lahayd diin dadkoo dhan wada qaadata waadna mahadsantahay tiri ninka odagaha iska baxa شوف مركا إلهي سبحانه وتعالى هداد دورستid dartiisana aad wax u dhaaftid waxa ku furmi doona waxyaabo aad iyo aad u tiro badan meena aan wax ka filayna way imaanayaan qisooyinka marka hadda taas ma halkaas uga bax laakiin qisooyinka maalin walba dhaca oo inagana haysto aan wax yar kaaga sheego
anigu dad badan baan la shaqeeyaa ajaanib muxuu ahaa ii sheeg iyo dad soomaaliyeedba dumar badan baa ku jira farsamooyinka marka aad isticmaashid adigu ma garanayo laakiin farsamooyin aan isticmaalaa jira dumarkaas aan la shaqeeyo oo haween waaweyn gabdho yaryar waxay isugu jiraan onboardingka marka la sameynayo oo ugu horeysa ee jagadu ay kusoo biirayaan ama shaqada ay kusoo biirayaan haddaanba nasiib u yeesho markaas inaan joogo oo markaan isbaranayno hore waan isbaraa waxaan isu sheegaa sida aan ahayn qofku waa taqaanaa dee introduction la sameeyaa qofku markaad isbartid waxaad tahay aqoontaadii jagada haysid waxaasiyo markaasaan waxaan la wadaaga oon u hoosgeliyaa waxyaabaha shaqadeenni wax u taraya waxyaabaha na wanaajinaya do's and don'ts adi waxyaabaha la sameynaya waxyaabaha la sameynaynin dhowr xabaan u diyaariyaa oo kala duwan oo shaqada naga anfacaysa day to day nolol maalmeedkeena waxyaabahan ugu dara marka waxaa ka mid ah in salaanta iyo isgacanqaadka aniga iyo iyada aynan sax ahayn aniguna aanan ku faraxsanayn arrintaa oo aan ogolayn iyaduna inayna xumaan iga qaadanin maadaama laba qof oo wada shaqeyno aan nahay xumaan ma aha dhibaato kalena ma aha markaas waxay ku leedahay oh yes cabdi waa mahadsan tahay inaad ii sheegtay runtii waa ku qaldami lahaa thank you very much diinta waxa waaye dualla kure muhiim waaye inaad noqotid qof practicing muslima way fiican tahay aniga laftigay diin heblaayaan haystaa saasaan waxyaaba aan diidnaa jira marka waan ku faraxsanaynaa hadda sii ogaado way kugu qancaysaa qofkii haddaad janiskaasi waa farsamooyinka aniga aan isticmaalo mararka qaarkood waxaa dhacaysa inaadan janis u helin in onboardingkaas iyo xilligaas hore aadan fursad usoo helin oo ay kaa horeysayba oo gadaal uga soo biirtay marka la raadso fursad kasta oo aad uga faa'iideysan kartid inaad arrintaasi dareensiisid ama u sheegtid oo kale haddaad u sheegi kartid would be okay laakiin mararka qaarkood ma sahlano waxaa laga yaabaa inconvenience inay ku keento laakiin waxaad dareensiin kartaa qaabkaada ayaad u dareensiin kartaa مثلا مرة أنا مثلا السلام عليكم كله هذا أنت ترى هذا كله thank you هذا ترى هذا كله أنت جمعها سعرت هذا كله أما أضو جواب كجمعها كل جرا كله سلامتي والله يا مرة كورين ويد يكو أركان لك مرة لبا يسدح جر يكو أركان ساس كله وحصورة كله إني فهمان أو أين كو قاتل إن تعرفوا practice المسلمة أو مسلم نمنيسي إسلام نمنيسي دين تيسي practice قريني مسهلنا لكن أقول ضد فربضان ayaa jagooyinkooda iyo shaqooyinkooda laga yaabaa inay ku waayaan haddii arrimahaasi ay sameeyaan laakiin adoo mid baa kala dooranaysaa ma ilaahay subxaana wa tacaala inaad raalli gelisid oo muxuu ahaa ii sheeg dartiis aad dembi isaga ilaalisid ayaa kuu sahlan mise qancinta qofkan oo kale ah waxaad ogaanaysaa mishaaraadka meeshaas aad ka qaadanaysid aad iyo aad ay muhiim kugu yihiin si fiican aan u fahamsanahay hana u arkin inaan kaa burinayo لكن الله سبحانه وتعالى يسقى ويديس واحد هذا يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله يقول عاوي أو يجي يلقوا فهم سين دونا إنا تهاي محوها إيش قف كله ضد كان هذا شقينا ضد حجرة قرقوا هالكاس يلاقينه كوفية ذا قبو أو ما شاء الله لبس كودي قميصه ذي قبو جوه يسرسرنا هيا لقونا تيخ كليو because ولا فهمي ولا باهية ما حد يلقوا باهية هاي value هتسوزا إذن يسوي لقوا تعقلنا وحاتها مرة قاركودنا qiimo kale haddaadan lahayn oo aad meel isbilqaysid oo aad waxba uga duwaneen kuwa kale gaalada loola shaqeynayo xidda waxaan kuu sheegayaa gaaladuna ma gaaraysid tii diintaadina ka soo tagtay dhaxdaasaad saas u laalaadaa adigoo foolxumo badan qiimo daran haddana sidoo kale marka si fiican isaga ilaali waxaan xasuustaa waa aan ka shaqayn jiray carabta ayaa gudoomiye waxay inoo ahaa nin aad iyo aad u garweyn oo carab ahaa oo asalkiisa masaari ahaa laakiin Germany uu dhalasho ka haystay marka xaggu ku soo waxbartay garku halkaas uu leeyahay cajiib buu ahaa marka team Jarmalka jooga oo cadaan ah ayaa soo booqan jiray mararka qaarkood ninka laakiin waa nin mutadayina oo cajiib oo salaada muxuu ahaa ishag aan ka tagin oo aad iyo aad aan ugu dayin jirnay inagoo dhanba oo diinta aad u yaqaan ma sha Allah waa marka maalin maalmaha kamid ah ayaa airport waxaan ku soo dhaweynay team German ka imaanayay markaas inta lagu booba dhab la sii salaanti bas lagu soo booday qof kamid wali hab ISIS aniga shock aan ugu dhahay waxay ahayd malayniya 2007 2006 meelaas shock ayaa ugu dhahay markaas waxaan oh my goodness say wax u jiraan odayga maanta waa la galay bas markuu aan sheekaysan jirnaa anigu saaxiib aan ahayn inkastoo gudoomiyaha shirkadu ahaa maalin maalmaha kamid ah inagoo safar aadno Sacuudiga tagnay ayaa waxaan weydiiyay أحمد الدهي كورنا أرنتاس دينتو محي كقبتا أنا قاعد وحنا محو قدوة أدي أدو ونحي وحوير والله عبدي وكحو ماهي وحنجع على استماعها هوست أيضا يجرتون باناركي ويهوست جلسي لكن
caado fiican ma aha adigana kuguma ogi mar walbana tiimkaas markay imaanayaan ciladaas waana geliyaan ilaahay subxana watacaala naga cafiyo shuuf yani qofkaas fiiri ilaahay subxaana watacaala ku caawinaya qofkaas markuu sidaas u dadaalayo uuna uga xun yahay qaladaad ma kaa dhacayaan haa qaladaadkaas laakiin camdi hadday kaa noqdaan caadi kuu noqdaano kas ay ku noqdaan weeye midka mushkiladda ay kaaga imaanayso marka ilaahay subxana watacaala ha nagu garab istaago laakiin wax waliboo dhaco diintaada ha ka tegin ka tegitaanka diintuna meel fog ha u raadin waxyaabahaas yaryar oo caadi kuu noqdo ayaa waxa ay ku horseedi karaan waxyaabo kale oo waaweyn oo adi aanan filanaynin inay muxuu ahaa isha kaa suuroobaan maanta ilaahay subxana watacaala ha nagu garab galo wax kale oo aan haysano oo ka qiimo badan diinteennaas ma jiro sababtoo ah hantida ugu badan ilaa hadduu alla ku rabo ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey waxa waaye diintaas iyada ah ilaashigeeda labada gacmood inaan ku qabsano gows dambeedkaas intaan gashano aan dhab siisanoona laga fujin waayo ayaan rabaa marka ilaahay subxana watacaala garabkeenna ha istaago dhammaanteenna waxaan rajaynayaa inuu nagu garab istaago noloshan iyo tan dambe intuba hadaa billahi tawfiiq